kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada shabakada wadaagsan production oo aan hadahan oo kale warkeeda idiin soo gudbin jirnay waa 24 bisha July 2019 qodobada ugu doorka roon ee warkeenana waxa kamid ah xildhibaano iyo wasiiro hoteelka ay deganayeen looga saaray amar ka soo baxay kooxda al-shabaab Turkiga oo wacad ku maray inuu ka aargoosan doono dalka Mareykanka nuucyo kamid ah daraaska ciidamada oo laga mamnuucay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo eryo wafdiga ka socday midowga Afrika Puntland oo baaritaan ku sameynaysa dilkii Paul Anthony Farmosa daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena haashana ku soo dhawaada isagii oo fidsan fadlan daawada waxa xasuusiniga ah inaad subscribe saaratid channelka si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo galin xildhibaano iyo wasiirada hoteelka ay deganayeen looga saaray amar ka soo baxay al-shabaab hoteelka Suubiya oo ku yaala magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Howlwadaag ayaa aad ugu dhow xarumaha maamulka Hirshabelle gaar ahaan xarumaha madaxtooyada baarlamaanka iyo xarunta maamulka gobolka xildhibaanada wasiirada iyo shaqaalaha kale ee Hirshabelle ayaa hoteelkan deegaan ahaan u ahaa waxaana lacagta bil walba lagu dalici jiray maamulka Hirshabelle xildhibaanada iyo wasiirada oo qaar kamid ah la hadlay wadaagsan ayaa xaqiijiyay arrintan waxaana albaabka hoteelka lagu soo dhajiyay amar ah inaysan degi karin shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta Hirshabelle hoteelka Saabir dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka dambeeyay arrintan waxayna amar siiyeen milkiilaha hoteelka iyaga oo qabtay muddo kooban in hoteelka laga guuro ama ay soo weerari doonaan qof kamid ah maamulada hoteelka oo aan la hadalnay ayaa sheegay in al-shabaab ay soo waceen hoteelka isla markaana ay amar ku bixiyeen in si degdeg ah hoteelka looga saaro wasiirada iyo xildhibaanada ama ay ka soo qaadi doonaan weerar isugu jira dagaal iyo qaraxyo al-shabaab ayaa hore u weeraray hoteelo iyo goobo kale oo ganacsi waxaana weerarkii ugu dambeeyay uu ka dhacay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose taliska ciidamada booliska militariga nabad sugidda iyo asluubta Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta kale ee qaranka ayaa isku raacay laba nuuc oo kamid ah dareeska ciidamada Soomaaliya aan la isticmaali karin kadib kulamo ka dhacay Muqdisho kulamadan oo kii ugu dambeeyay ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyadoo sidoo kale kulankaasi laga soo saaray digniino culus dharkan oo laba nooc ka kooban ayaa isugu jira cadaan boor ah oo u muuqaal eg dharka ciidamada militariga Sacuudiga iyo nooc kale oo isla naqshadaas oo cadays ah dharkan ayaa sidoo kale waxa loo yaqaanaa dareeska ciidamada xasilinta waxaana horey loogu qaybiyay ciidamada gaarka ah ee xasilinta balse waxa hadda la sheegay in al-shabaab ay haystaan dharkaas waliba in badan oo kamid ah uu gacanta u galay dhinacyada kulanka yeeshay ee soo saaray go'aanka ayaa sidoo kale go'aamiyay in askartii lagu arko lagu qabto hadii ay diidaan qabashana la toogan karo afarta talis ee ciidamada Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay inay fariintan gaarsiiyaan ciidamada Soomaaliya isla markaasna dharkaas magaalada iyo guud ahaan dalka looga saaro muddo 3 cisho gudahooda inkastoo ay hadda ka soo wareegtay dhowr maalmood haddana wali waxa socota wargelinta ciidamada iyo wararka qaar ay sheegayaan in taliyaasha qaar ay gacantooda ku gubeen dharkan inta laga soo aruuriyay xariyaha ciidamada al-shabaab ayaa inta badan si fudud hela dareeska ciidamada Soomaaliya waxaana hadda la sheegay in ay heleen dharkii ugu dambeeyay ee loo qaybiyay ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska dalka iyadoo aysan cadayn sida ay u heleen faafayna dheeraad ayaa ka soo baxay kulan madaxtooyada Soomaaliya ay ku yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo wafdi sare oo ka socday midowga Afrika oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho kulankan oo ujeedkiisa lagu sheegay sidii loo xalin lahaa xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu bandhigay aragtida iyo go'aanka Soomaaliya oo ah mid aad u qadar Thabo Mbeki madaxweynaha hore ee dalka Koonfur Afrika oo wafdigaasi ka socday midowga Afrika ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday in dalalka Kenya iyo Soomaaliya ay arrintooda galaan madaxda midowga Afrika balse arrintaasi laga diiday madaxweynuhu wuxuu u sheegay wafdiga AAU inuusan gorgortan ku galin arrimaha badda balse uu diyaar u yahay inuu wada hadal ka galo xiriirka iyo wada shaqaynta labada dal ayuu yiri qof sare oo ka tirsan fila Soomaaliya isla markaana la hadlay wadaagsan production madaxweynaha ayaa wafdigan u sheegay in Soomaaliya ay sugayso jawaabta maxkamadda ICJ balse wixii kale aan qosayna arrimaha badda iyo kiiska dacwadda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kala hadasho Kenya ayuu hadalkiisa sii raaciyay qofkan aan la hadalnay oo codsaday inaan la magacaabin wafdi ka socday midowga Afrika ee dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho waxay horey u soo mareen magaalada Nairobi ee xarunta dalka waxayna kulamo la soo qaateen madaxweynaha dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyadoo sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ammaanka xasiloonida iyo arrimaha badda iyo xaaladda gobolka warsaxaafadeed xalay ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa mar kale waxay ku celisay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo eedeymo ku qoran maqaal 22 July lagu daawacay wargeyska New York Times oo dawladda Qatar la xiriiray qarax 11 May ee sanadkan ka dhacay banaanka hore ee maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso
qoraalkan oo aad u dheer ayaa maamulka Puntland wuxuu golayaasha fulinta iyo xeerdejinta dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay baaritaan dhab ah ku sameeyaan eedeymaha ku qoran maqaalka lagu daabacay New York Times ee dalka Qatar la xiriirinaya qaraxa 11 May ee sanadkan ka dhacay magaalada Boosaaso. sidoo kale Puntland waxay sheegtay inay dhawaan soo bandhigi doonto natiijada ka soo baxday baaritaan ay ku sameysay weeraradii ugu dambeeyay ee argagixisadu ka fulisay magaalada Boosaaso, gaar ahaan dilkii madaxii shirkadda BOA Portis Paul Anthony Bermosa. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka argudan doono Mareykanka haddii uu Ankara cunaqabatayn u saaro soo iibsashadeeda habka difaaca gantaalaha Ruushka ee S-400. haddii Mareykanku uu la soo baxo mowqif cadaawadooyo oo nagu wajahan, waxaan qaadi doonaa tallaabooyin aargudasho si aan horey u sheegnay. tani ma ahan jabaad ama cayaar ma nihin dal madax u raaricin doona kuwa noo muujiya cadaawad ka dhana Turkiga. wasiir Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in si kastaba uu rajoonayo in maamulka Mareykanku uusan qaadin tallaabo noocaas ah. Mareykanka ayaa horey ugu hanjabay inuu Turkiga ka saari doono ka qaybgalka barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 haddii ay soo iibsadaan barnaamijka S-400. Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in Turkigu ay baahida difaac ka buuxin doonto meelba kale haddii Washington aysan jiilka shanaad ee diyaaradaha casriga ah ee dagaalka oo ah F-35. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena. inta aan mid ka xiiso badan warkan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.